السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيق ودكتور عبد اللطيف محمد حسين وكم مقع دير دكتور جوهري. waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo calaamadaha lagu garto markay gabadhu ay uur qaado. Calaamadaha lagu garto markay gabadhu ay uur yeelato aad ay u badan yihiin, laakiin waxaan idiin soo gudbinayaa calaamadaha ugu muhiimsan ee aad ku garan karto inaad uur leedahay. Muuqaalkan waxay ugu heliyaa dhaqaatiir YouTubers caan ah oo iyagana qayb ka ah calaamadaha lagu garto markay gabadhu ay uur qaado. calaamadaha lagu garto uurka calaamada ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa amenorrhea oo ah in gabadhii inay caadada ka istaagto oo caadadii ay weydo. Inkastoo caadadii bil walba mar ay u imaan jirtay, xanuuno caadada joojiyana ay jiraan, laakiin caadadii oo la waayo waxay ka mid tahay ama ayba tahayba calaamada ugu horeysa ee lagu garto inay gabadhu ay uur qaaday. calaamadaha kale lagu garto inay gabadhu uur leedahay waxaa ka mid ah sidoo kale hooyadu markay uurka qaado mararka qaar waxaa ka yimaada dhiig yar oo aan ahayn dhiigga caadada, waxaa loo yaqaanaa implantation bleeding. dhiiggaas wuxuu yimaadaa marka ay faxlistu dhacdo ay kulmaan ugxaanta hooyada iyo spermka ama biyaha aabuhu markay kulmaan ayuu yimaadaa dhiiggaas, waxaana loo yaqaanaa implantation bleeding. waxaa kaleeto inay uur leedahay hooyada lagu gartaa waxaa ka mid ah swelling of the breast waxa la dhahaa naasihii inay barar ku imaadaan. sababtoo ah hooyo markay uur qaado waxaa jirka ku badanaya waxa la dhahaa estrogen iyo progesterone. naasihiina waxaa loo diyaarinayaa waxa la dhahaa lactation ama nuujintii loo diyaarinaya. sidaas awgeed waxaa bararaya oo weynaanaya, naasiha bararaya oo weynaanaya. waxaa kaloo isku arkaysaa aad iyo aad isku arkaysaa faruurahaada inay isbedelaan, khaleel ziyaada ay keenaan, khaleel ziyaado hataa faasiliin hadaa maristo hataa khaleelka yacni iska soo daraya ilaa hal sac ku haaneynin ama nus sac ku haaneynin, aad ayay khaleel u noqonaysaa. waxaa dareemaysaa faruurahaada inay toxo kasoo buuxooyin oo kale, kafey naqanooyin ayaa dareemaysaa. taas lama hadaa dareento maasha allah, iskiga shaki inaa uur leedahay ayaa mahaaseeti kuma kadib hadaa dareemtaa ka wada. calaamadaha kale lagu garto inay gabadhu ay uur qaaday waxaa ka mid ah inay gabadhu isku aragto xanuun lagu arko qaybaha hoose ee caloosha. badanaan waxaa sabab u ah minka ayaa waxaa loo diyaarinayaa inuu fido oo kala baxo maadaama cunuga bay-adii uu ku korayay ay tahay. sidoo kale hooyadu waxa isbedel ku imaanayo dabeecadaheeda markii loo eego bulshada ama qofka ee la nooshahay. sidoo kale marka ay marxaladaas ku jirto hooyada waxaa zaa'id noqonayo dareenka urteeda ayaa zaa'id noqonayo oo waxay dhibsataa cuntooyinka qaar ama cuntooyinka qaar la dalcayo ayay dhibsanaysaa, kuwa qaarna way jeclaanaysaa. marka arrimahan oo dhan waxaa loo aaneynayaa isbedelada ku yimaada hormoonada ayaa loo aaneynayaa. waxaan isku arki jirna isku arkaysaa sida ay cuntada markii la karinayo kale inay ku soo urto, waxa aad dareemaysaa xanaaq fara badan, aad dareemaysaa waxa dareemaysaa in oo qofkaaniti qof aad isku fiicnaadeen aad isku dhaceysay marka uurka leedahay. calaamadaha kale lagu garan karo waxaa ka mid ah madax xanuunka oo kale oo lagu yaqaan hooyada. sababtoo ah waxaa imaanaya over active of the body, jirka inuu shaqo badan qabto. shaqada badan jirka markuu qabanayo kadib waxaa sameysmaya dhiig badan, waxaa weynaanaya xididada dhiigga weynaanayo. markaas sidaas awgeed marka qofka hooyada waxaa ku dhacaysa madax xanuun fara badan ay isku arkaysaa, madaxa xanuunaya. calaamadaha kale lagu garto waxaa ka mid ah inay gabadhu isku aragto labalabo iyo matag. badanaana labalabada iyo matag waxaa sabab u ah hormoonka loo yaqaano HCG oo ah hormoonka lagu garto uurka ayaa aad u badanaya. taa waxaa ka dhalanaya marka in gabadhu inay isku aragto labalabo iyo matag. timuhu inay ku yaraadaan iyo xaadu wajiga iyo dhamanadan. gabadhu markay timo dheertahay ama timo badan tahay halkan ama يعني meelaha loo yaqaano sanlaxyaha ama meelahan xareedada ama daamanka xaad baa ka soo baxa, kuwii halkaana soo fido halkan imaada, laakiin markay uurka qaado yaa waa cararayaan, wax kala cunay. taasna waa calaamad lagu garto uurka. calaamadaha kale lagu garto inay gabadhu ay uur leedahay waxaa ka mid ah in gabadhu inay isku aragto daal iyo tabardari far badan.
waayo jirka ayaa waxaa ku badanaya hormoniski waxayna sababayaan in ay jirka inuu aad u shaqeeyo kadibna waxaa ka dhalanaya in gabadha inay dareento daal iyo tabardari fara badan. waxaa kaloo keena haddii gabadhu ay qabto anemia ama dhiig yari idin sidoo kale waxay dareemi kartaa daal fara badan iyo tabardari. sidoo kale waxaa ziyaada heerkulka jirka ama kuleelka jirka ayaa kaca. hooyadu waxay dareemaysaa kuleel zaaid ayay dareemaysaa, marka qaar waxay ku dhahaysaa korka ayaa i huraayo. marka taas waxaa u sabab ah temperatureka jirkoo kacay ayaa u sabab ah. calaamadda xigta waxa weeye oon daran wayse hore u qabi jiray in lagu bilaabo. oon daran, haraad, biyo u baahan, biyaha naga dhan baa u baahan. ilaahay wuxuu leeyahay wax kastoo noolo ah biyaha laga abuuray, marka biyuhu waa nolosha horta. markaad oontid oo keliya inaad u baahatina maahan cabdi, mar walba inaad iska dabirisaa. dadka qaar waxay ka wahsanayaan suuligalka iyo kaadida badan ka imaanaysa iyo habeenkii saqda dhexe soo kacaya waxaas, laakiin waa caafimaadkaada, iska dayacin. marka oon daran, haraad ayaad dareemaysaa. hadda aad ninkaaga la sheekaysato hore musqusha ka aadin, talo waa iga talo insha Allah. hore musqusha ka aadin, barkin dhabarkaada dhigo ugu yaraan 40 daqiiqo ama hal sac. barkintaada dhabarka kugu jiraato lugahaadi ama kor u taag ama barkin dhabarkaada gasho ama fiigaa ku fiirso ama taleefankaada ku fiirso ama sheek iska qabso ama meesha iskiga baashal aday kuu taala ama ninkaada markaas ula sheekayso. laakiin si aan waxaan kugu talinaa inaa adi markaa ninkaada la sheekaysatay isku markii aa istaagtid musqul aa gashid ama aa soo socotid meel mustacjil muutid insha Allah. yacni adi dadaal ayaa muujinaysaa markaa adiga ninkaada la sheekaysatid inaa musqul hore aa ka aadin oo gurigaadi sariirtaada iska fuushid oo lugahaada kor aa saartid kadibna barkin dhexda dhabarka aa gashatid. dadaal ayaa muujinaysaa, yacni dadaalo dumaskii ma khasaaro. ilaahay insha Allah wuxuu dhahay dadaala, anigana waan ila jiraa. saas darteed waxaa ku amroyaa inaad dadaashid. wixii commentiga qaybta hoose kusoo reeb insha Allah, meeshaasaan iskaga jawaabi doona hadduu alaydmo. waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo YouTube channelkayga wuxuu hadda kusii socdaa 2,000 subscribe ayuu ku socdaa. waxaan rabaa inaad gaarsiisaan ilaa iyo 10,000 subscribe inaad gaarsiisaan aan rabaa. taana waxaan ku heli karaa adinka garabkiina oo inaad igu caawisaan inaad muuqaalka ii share garaysaan oo aad dad badan ii gaarsiisaan. waayo share garaynta waxa kaliya wax lagu gaaro oo qofkan uu ku heli karo subscribe fiican waaye. aada u maasantihiin. haddii ay tahay markii kugu horeysa aad soo booqato fadlan subscribe saaro. waxaan insha Allah soo wadnaa muuqaalo taxana caafimaad oo habdhisidda jirka aan uga hadli doono hadduu alaydo. aada u maasantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meeshin ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba aad jeceshahay in uu muuqaalkan ka faa'iideysto share gareena.